maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمين تشرفت له سؤال هذا ولي وحان ودنا سو جيدينتي سو بندقدي كتابك التاريخ ده دوكسيغ السري فسلديس أفرت waxaan saaki dhammaynay kitaabkii koowaad ee dugsiga sare annaga oo inta badan hadda kitaabka oo dhan waqtiga ma saamaxayo in la sharxo ama la dul istaago balse tusaalooyin yar yar oo isleenahay bal macallinka iftiin ha u noqoto calaa dawiha si ugu socdo waxaan xoogga saarnay mar kastana xoogga la saaraa shay kasta objectives oo leeyahay ahdaaf why ahdaafta macnaheedu why maxaa wax kasta maxaa aad daba socoto maxaa cunugan waxaas loo baraa duruustaas maxaa loo siinaa oo wixii raba loogu dhigi waayo sababta waxaa waaye ujeeddo lasoo xadiday laga baaraan degay waxtarka ay leedahay iyo faa'iidada u leedahay waayo waxa la barayo ee wax kasta maaha in loo sheekeynayo maaha okay waxaan kala xoogga saarnay waxda kasto hadda kitaabkan hadda aan ka sheekeynayno haddayna waa sheegnay wuxuu ka kooban yahay 6 waxdo iyo 22 cashar 6 cutub iyo 22 darsi uu ka kooban yahay cutub kasta wuxuu leeyahay ujeedooyin u gaar ah waa cutubka ahdaaf alwaxda la waa badan kartaa dhaxdhaxaad noqon kartaa laakiin sida badan mucadalkooda 15 16 camal ay u badan yihiin oo hadaf oo la rabo in lagu xaqiijiyo waxdadaas cutubkaas waxdadii waxaa ka sii faracmaayo duruus oo sida mucadalka ay tahay 4 darsi mucadalka hadda kanoo kale waxa waaye 6 waxdo waaye 5 waxdo min 4 darsi waaye hal waxdana 2 darsi waaye 22 darsi kasto ama 10 kasta aan bixinayno wuxuu leeyahay ujeeddo si u gaar ah darsiga kale shaqo ma kula darsiga kale aan gali doono ujeedooyinkan shaqo kuma laha ujeedooyinkan waxay gaar u tahay 10 kan hadda aan bixinayo 10 kale baad hadaf u leeyahay markii la isku dardaro casharadaas afarta ee tusaale waxdada hadaf u ah waxdadaas ku jira ahdaaftoda oo dhan ahdaafta ku jirto waxa loo qeybiyaa darsigan hadafkaas su'aalaha marka waa arki doontaa as'ilatul waxda la dhahaa as'iladahaas banaanka lagama keenin ama mid cusub lama alifin isla waxdadii ahdaafteedii su'aalo loo rogay isla gudahana waxaa ku jiro isla ahdaaftii oo qiimeyn noqotay uqayimu tacallumi taas marka waxa waaye waxaa lagu xaqiijinaa uqayimu tacallumi markuu leeyahay ardayga asaa isqiimeynayo self evaluation xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabuu tiyaa socoto ardaygan haddii ma fahamtay haa oo ku dhaho maxaa ku xaqiijinay qalbigiisa ma ku jirtid laakiin isaga ani hadda qalbiga wax ku jira ma sheegi karin laakiin markaa hadashid wax qalbiga ku jira waa ay sheegtay ardayga hadduu dhaho anaa isqiimeyna macallinow waxaa ogaanaysaa meesha uu ka gaaray casharka marka saas markaa u kala dhigdhigno waxaa hadda aan qaadanaynaa cutubkii saddexaad hadday waxaan soo qaadanay cutubkii koowaad oo ahay xadaarat bilaadi raafideen Mesopotamian civilization oo ka soo sheekaynay qaabkii ay u dhismeen heerka ibaaxadii ay leeratay maxay madaahir lahayd maxay horumar lahayd maxay markii dambe
burburtay lianna wax kasta waxaa ogtihiin bilow iyo dhammaad ay leeyihiin wax kasta bilow iyo dhammaad ay leeyihiin walikulli ajal walikulli ummatin ajal a ilaahay dhahay ummad kasta dhammaaday leedahay waqti ay dhammaato yacni xadaaradana ama ilbaxnimadana waxaa lagu shabahaa bani aadamka cunuga asoo radiic ah asoo waliid ah asoo shaab ah asoo sheekh ah asigoo marxalad inxidaar soo hoobtay oo mataqaana marxalad alwafaat dhimasha u dambaysa xadaaro kastana saas way bilowga hore xadaaradda qur-aanka waa aragteen wadkuruu id antum qaliilun mustadcafuuna fi lardi takhaafuuna an yatakhatafakum annaas ilaahay gadaal u xasuusina dowladdan weyn hadda oo ballaaran nabigu ilaahay wuxuu leeyahay gadaal u noqda waqti waxaad jirtay adinka cabsi a ku nooleydeen oo isdhehayseen goormaa idinku soo weerara tabar idnaan lahayn markaasaa hadda awood ilaah idin sameeyey xadaaradda marka waxay ku bilaabataa marka hore meel yar ama magaalo dhowr magaalo ku bilaabanaya ama meel yar ama mararka qaarkood waxaan arkaynaa qabiila dhisaayo qabiil sida cusmaaniyiinta iyo cabaasiyiinta waxaas dhan qabiillo wey kuwaasaa dhisaayo kabacdi waxay isu bedelaysaa imbaratoriyad weyn oo waddamo kale maamusho adduun maamusho haddana waxaa arkaysaa isla xadaaraddii cusmaaniyiinta ka soo qabo cusmaaniyiintii oo yurub ay ka cabsan jirtay markii dambe maxaa loo bixiyey the sick man in europe arajul almariid fi Europa yani asoo nool waxaa la qaybsanaya dhaxalkiisa arajul almariid fi Europa waxay ka wadaan intuusan baabi'inba waa la baabi'in doonaa haya ani intaasaan leeyahay waddamadiisaa la qaybsanaya sida adooga allah u naxariiste markuu dhiman rabo oo loo fariisanayo muxuu ahay waxaas iyo waxaas anaga baabuurka anaa iskale beerta anaa iskale dukaanka anaa iskale loo dhahayo camal wey adoo nool aa lagu dhaxla aawe marka awooddii aawe waa dhammaatay maxaa yeele ajirkiiya ku dhammaaday marka hadda waxaan qaadanaynaa dowlad kaloo weyn waa dowlad umawiya la dhaho oo ballaaran oo xoog leh say ku samaysmatay herkay gaartay maxaa laga dhaxlay maxaa ku dhammaatay oo ka hadla markii saas la dhaho marka intaas aan fahamno ahdaaftan casharka horta intaanu ka kooban yahay waxdada intaanay ka kooban tahay qiyaami dowla umawiya ayuu ka hadlaa waa cashar siday ku aasaasantay laga sheekayna nidaam alxukmi fi dowla umawiya nidaamka hanaanka isku xukumi jireen see waaye annaga ilaahay hadda dowladdan waa dowladdii saddexaad waay dowladdii nabiga kow waxaa ku xigtay alkhilaafa araashida oo afartii oday abubakar cumar cusmaan cali alkhilaafa araashida la dhahaa iyo addowla alumawiya ayadaa saddex ku saddexdaba saddex kala hanaan oo kala gedisan ay isku maamulayeen nabiga waqtigiisa calayhi salaatu wasalaam waxyaa soo degayo shay markuu dhaco waxya ilaahay soo dejinayo waa la hagaaya nabiga saasay ku ahayd amarka ilaahay ku socday nabiga markuu dhintay khilaafad ay yimideen hanaan la dhaho hanaanka shuura wada tashiga ayay bilaabeen kaale waxay dhaheen waxay naguma soo degaaye sidee howlaheena u qabsanaa wax shuuradaasa lagu jiray oo mataqaana nabigana calayhi salaatu wasalaam asoo waxay ku soo degaya dadka waa la tashan jiray laakiin waxyiga asaas ahay laakiin qoladan waxay kuma soo degaayo wixii dhaco saxaabadaa la kulminayo iyo akhyaarta ka warrama arrintaasaa la dhahay nabiga markuu dhintay yaa talada qabanayo waa lisu yimid bani saqiifa meel dhaha lisugu yimid daar oo weyn sidii mataqaana baarlama hool weyn waa lisu yimid muhaajiriin ansaara isu timid waa la dooday weliba dood kulula ka dhacday meesha maa fi mushkila ha la doodo laakiin natiijadu maxay noqotay waa la dooday qoladan waxay dhaheen ansaar annagaa booskan iskale maxay annagaa idin soo dhaweeyey adigoo saas mayaa la dhahay qolada muhaajiriinta waxay dhaheen dadkii koo nabiga iyadoo dadkan dhan ay diidan yihiin rumeeyey oo dhibaatada la galaan ahayn marka annagaaba xaq u leh marka haye saas mi ahaa marka laba amiir aan kala samaysano adinkana amiir yeesha annagana amiir yeesha waa hadda maamul goboleedyada iyo waxsaas calaa kulli xaal ugu dambeyntii wax ma idiin sheeganaa la yidhi laba amiir war ma ahe hal aan isku raacno sayidna cumar la soo rashaxay waxaa la yidhi sayidna cumar waa taqaaniin nabiga meeshuu ka joogay sayidna abubakar cafwan sayidna abubakar meeshuu ka joogay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ogtihiin shay ugu weynaay inuu ku aaminay oo ahayd salaada inuu dadka tujiyo nabiga marka green light ama doo akhdar wuxuu bixinayo ninkan wax kasta waa ku aamini karaa waay haddiiba salaadii lagu aaminay maxaa diiday in talada lagu aamino alla leeyahay waa runtaa hal yidhi abubakar sidaa lagu caleema saaray marka nidaamkaas
waxaa ku yimid marka darsiga waxdadan aan ku jirno nidaamkii umawiga qaab ku ahay waxyi ma kusoo degaynin shuurana kuma nooleen nidaam wuxuu ahay wiraasi ah oo dhaxal ah wiilka aan siina wiilkiisu siina sida hadda oo boqortooyada wadamada qaarkood ay ka jirto dhaxalka ku qaadanay ayagaa bilaabay waa nidaamkii ayaga ay alifeen wey marka ardayga marka waxaa laga rabaa inuu nidaamkaas xaqiijiyaa la rabaa waxaa soo maray khulafooyin badana soo maray ilaa dhowr iyo 20 khaliif oo ugu horeeyo Muawiya ibn Abi Sufyan wixii aan rabaa inuu barto Muawiya Yaziidka u dhalay wixii kale ilaa kii ugu dambeeyay oo ahay kii markii dambe Tataarka ay ku dileen magaalada Baghdad oo mataqaana kaas oo kale أهم أعمال الدول الأموية ما هي قبض horta wax kasta waxay leeyihiin boosti anaga iijaabi iyo salbi wax kulli toos ma jiro kitaabka ilaahay ilaahay ma siin dadkan ka hadlayna kitaabka ilaahay ma wiil waxa kale dhan waxa waaye adi hadda boog hadaa qortid isla adiga lagu dhaho berri ku noqo wax badan ku soo baxay walaha ka dhinay walaha ku dartay walaha khaladay berri dambe hadii lagu dhibo nafsi shay kaamil ma noqonay kitaabkaas bas okay marka qolyahan waxyaabo badan ay qabteen run ahaantii waa arki doonaa kitaabkay ku qoran tahay hawlo badan ay sameeyeen islaamkii waa fidiyeen mataqaana wax badan ay sameeyeen waa la arki doonaa taasna ardayga inuu bartaan waxdadan ujeedada aan ka leenahay maxaa waay casharada intaas waay ujeedada aan ka leenahay maxaa waay ujeedada waxa waay in xaqiijin waxaan rabnaa ujeedooyinka waa la badin karaa wana waa la soo koobi karaa waxay ku xiran tahay hadba sida aad u rabtid hadda kan 6 qodob ku soo koobay kuwii haday aan soo qaadan oo dhan 10 iyo ka badnaayeen laakiin kan waa iska soo koobay ardayga waxaan ka rabnaa waxdadan oo dhan 4 darsi markuu barto in uu xaqiijin karo horta taariikh khulafa bani umayya khaliif kasta taariikhdii iyo waqtiguu jiray iyo wuxuu qabtay aan ka rabnaa nidaamkii dawladnimo ay wax ku maamulayeen waa ka rabnaa ayaga in muqaarana isbarbardhig loo sameeyo ayaga iyo khulafadii wanaagsaneed oo raashidiinta ahayd sidii xukunka loogu dhiibi jiray khaliifka afarta khaliifadu tashi iyo talo ayay ku qabteen nin dhaxal ku helay male abubakar saan sheegnay waayo waa la shiray asaa loo dhiibay abubakar markii uu dhiman rabay saxaabada dhan uu kulmay wuxuu dhahay war niman yahow aniga waa si socdaa waxaan u egtahay tan inaan ka kici doonine maxaa tale see u aragtaa la yiri wallahi aniga haddii tale ayga qaadanaysiin aw cumar in loo dhiibo aan qabaa booskayga waa isku raacnaa la yiri yaa cumar ka fiican waa isku raacid waay wax la isla ogol yahay shuurada lagu sheegay wax la isla ogol yahay qori lama soo qaadanayo fallaaga lama noqonayo mucaarada lama samaynayo wax la isku ogol yahay sayidna cumar markii uu dhiman raba asigana guddiyo magacaabay oo yiri aniga hadaan dhinto ilaa waa dhaawacana ma ka kacayo yiri waa ogahay waa nin weyn wadkiis waa yaqaana waxaan rabaa yiri guddigaas in ay galaan howlaha doorashooyinka ay soo xulaan qofkii booskan qaban lahay guddiga maxay sameeyeen Cabdiraxmaan ibn Awf gudoomiye u ahay waxay la tashteen macal dumarka macal hooyooyinka ay la tashteen yaa aragtay kulli waxa la isku raacay Uthman ibn Affan inuu yahay ninka u qalmo booskaas dadkoo dhan waa isku raaceen sayidna Uthman waa dhintay والد اللي صار سحنا لو دل ولبو الله نحرس قرمو تشنايه اسق سالي يا مرك نمان كيف لاقد اي اسد لنا بحين سيدنا علي يقول هو وحدين ادين نو نقو خليف وحير رالي هذا خليف تصل قوم نقضه مساجد وحير هاي مساجد كداربتين مساجد كشيغه markaas hal doorto مساجد كay tagan waxay dhahan سيدنا علي aan dooran wala isku raacay kulli god shooray ku yimidaan ama shuuradii beeneed ama doorasho dadban ha noqoto ama doorasho furan ha noqoto sidii la isku raacay sidii ninka lagu doortay marka ardayga waxa rabaa inuu kala yaqaano oo barto farqiga u dhaxeeyo qaabkii khulafa raashidiinta hadda waxa arki doona buugag iyo dadka hadlay u dhahay xoog ku qabsadeen iyo waxa arki doona inuu beeniyaal raba u dhaho beenta waay ana waxa aqaano saas waay nimankan laakiin nimanka noo bilaabi balaayadan waay in la iska dhaxlo dadka hadda maxaa lagu dooranay خليفة كتب حلو دورناي مواصفات في عن نيم وناكسن ونبغى رالك هاي دورناي لكن كان حالك لسيناي كو الكوليستا اللي باي كو نظام أو حواي حتى مركي أرنتان إدى علي عائشة رضي الله عنها حيتري ما نظام كي كسر يقيسر نو كانتين هاد أو دحالك هاي ويكحماتي ولبو إنه برتال رباردي
meeshay gaartay dowladda islaamka casriga umawiyiinta waa ballaaratay intay joogta awal madiina leela joogo waa ballaaratay weli as wuxuu ka dhisay kuufa magaalada Constantinople waxaan arki doonaa waqtigoodii ayaa la bilaabay in la qabsado la furto Constantinople Istanbul meesha hadda la dhahaa weli calaamadihii waa ku yaalin mataqaana boondadii waa ku taala meelihii lagu dagaalamay kulli waa leedahay aasaarti marka magaalo xoog badan ahayd ay lahaayeen nimanka oo Roomaanka qabsashadeedu waxay ahayd guul weyn ahayd xataa taariikhaha la soo qaataa taariikhaha lagu soo qabtaa the falling of Constantinople hadda soo aragna umalayna nimanka Yurub markay qeybeynayeen أدوار التاريخ تاريخ السدح هذا عصر القديم وحيدهم وحكوا إجهاي مركي قسطنطينية أي نعدي أي نهاية مركي حدث تاريخ وين نغطي لكن مسلمين تنا قدام بيت محمد الفاتحة قبسم دونه أدو إله يرى أو متقانا إيه رأيي إنه كبحي على الربا إنه رأيي يسكبحي في أرضي ولي سجال متقانا رأيي لسينا ملو قصباي كورنا على ليه ذلك يا خلفوينك موينت فرشوينك ولك مسلم اسلام كدغان كورن ارتيغا كهدلاي الدور wuxuu leeyahay xoog ku qabsadeen ra'yigiisa ma adax ku leedahay laakiin marka waxaan rabaa in la siiyo ra'yi hadda kan markaan ka baxno ahdaafteena guud waatan ahdaafteena marka waxay soo hosgalaysaa 14 ay ku dhex jireen midba mikii kaga aadan ka bacdi markay dhamaato ugu dambeyntii as'ilatul wahda الثالثة وحدنا وسدح سؤالها وفهم كرتافير هذا بين وبين عرف وعرف اسل سؤاله هو ما هو اساس لو يلي ما سؤالك لو ودين وين تن انا من اولا اسكدان ارضي وبرن دونا لكن تن اساهد له هايب وانا عدينا انا فهم وليس ماشي هذا معلنو هذا أركتد أرضي أبين ماشي سؤال هاي أبينه وعرفه وده سوى حجران والنظام كان أنتوا نوغيم وأرضي أسيجي السؤالي أردين محايلي هنان كان هذا أن ربنا هدو إلى إيران ومحورة الطالب أرض بلحات أرضي أساس كيناي أرضي كان ماشي عن جوجوب لهن ودي لهن واحد سمي إنه سمين كر إن كان أسيجي الربع إنه له أنا سمين كرو أنا عدين كرو أنا كلا ساري كرو كلي هدف كان أصلا عن التاسوي عائلي معلو أذيك واي نكر رب إنا هكتد ولي مكان هذا والله هاي شرف الله هذا والله هاي معلن كوات هاي واحد إسكاب بدل ملء لكن إدارينتي ما مولدي أو عشرة يفصلك حقوق وقاب كلا لو هذه أو أهد ماشي أرضي كان متلقي أو هاي 10 كله شو باي ما أقدر المعلق دلدل ماي غف ماي صور وشرحاي سفي عن يسحب بس ودراي هاي ما له فهم 10 هاي حسد ما إيماننا تسمع أردقان ها أو كلها إنه فهم إن كل سك أغاني وحي ما كوس ودقان قلبي ما كجرتا وحكو أغاني سا activities كان يقاوم كان مرنا أسيك هذا أسيس قيمة سؤالها أسيس صدره كسر جواب مركز وحل هذا نعم جودي meel cidlo kuma dhamaan adigana markaas ogaanaysaa hawshaad inaad gudatay macallinka wuxuu la mid yahay qof arkay qof biyo kuma shoobay webi ama bad xaq ku hay fiirsana maya soo baxa ahdaafta oo good oo 10 loo qaybiyay haddana su'aalihii ay noqonayaan qiimayntii ku jirto marka qiimayntii aan soo dhaafnay waxa waaye 3 qaab waaye ardayga taqyiimkiisa 3 qaab waaye مر وحواي سيد كتاب كنا أقرأ أقيم تعلمي أساهد لاي أساس قيمينا هاد لاي تاسوات تنهرت كون نوع وأرض يلفت كيس أسئن أسقيمي كبعدي هدانا وحواي أصحاب تيس جروب كيس أما كوا لفردي هالنقطة أما مجموعة أقيم معلنو جروب كاس هدانا أسقيمينا إني فهمين مركي ساس ليالو قدام بنتي معلنو qiimaynta ugu dambaysa adaa iska leh ardadan waxaan ma fahmeen sidii oo laga rabay ma ka soo baxeen macallinka iska leh laakiin processkaas inay soo marto horta koob ardayga naf qofka asaa mas'uul iska bilaabo inuu fahmo in kale ana hada shay aan fahmin waa dhihi karaa waa fahmi shay aan fahamsanayn ma fahmin waa dhihi karaa
laakiin markaan soo bandhigo aan la ogaanaya inaan fahmay in kale kow markii asxaabteyda aan iswaraysano oo soo bandhigno waa la ogaan karaa inaan fahmay in kale macallinka markuuna sii qiimeeyana marka qiimeyntaas saddexda ah daruuri waaye si ardayga mataqaanaa casharkan oo u fahmo ilaa juhdiyaa baxaayo ardaygaa kuu fadhiyo adiga waqtigaa ku bixine marka inkuun ma fahamteen haa lagu kala tago waa laga fiican yahay systemka cusubna warkaasi as'iladaa markii la joogo waxaa arki doontaa hadhow kutubta soo socota thalith iyo raabic xoogow marba waxbaa nagu soo biiraayay as'ilada intaan laguma koobaynin as'ilooyin kale lagu dardaray as'ilooyin kale ku arki doontaa marka haddaa aragtid hala yaabin waa in la buuxiyo oo la ballaariyo as'ilada la ballaariyo noo soo baxday ilaa wax kasta qaabay ku bilowdaan marka su'aalo oo objective questions iyo su'aalo oo subjective kulli waa ku jiraan jawaab geli sugeyn saas yeel sheeg carif kulli waa ku jiraan marka kabid waaye laakiin bayska oo su'aalaha waxay ka imaanayaan ahdaafta waxdada taas ayaan mataqaanaa isku baraarujinayni ولي أهدافتي سقال وايا سقال هدف أحدد امتداد الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الأمويين أرضي وحو حددها يا حددات مع هذا محاول شيء وكوبيسا سكوب كيسا كوبيسا انت ما كدريست وحنا ما كدميست دولة الأموية وحي قارتي انت سو ضل أدي كرتا ضل أيسن قارن ما كدري كرتي ضل قارتين ما كرهي كرتي تحديد كساس ولخص وحن سوكوبا أسباب فشل المسلمين فيه واسود ديان بلو هو الاسود دي والو فشل مي يعني والو فشل نو حلقه ودا ولا قلي واي اولا وحا حوق بدناي دفيسيده ثانيا يعني وكا حوق بدنايين قالده وحوق بدنايين marka waxaawaladii hore laguma guuleysan laakiin markii dambe waa lagu guuleysan doona insha Allah waa arki doona ra'yiga waxaan ka dhiibanahay dhahay هذا يحل هاي ما رأيك ترتيب اللويدي هذا أصاب الدايم رأيي وحن كل جبنا يا أستاذه ذلك خلفاء الأمويين تأكل قالين رأيك جبنا هاي تفضل رأيك كان عليه وحبوش شيء جاية سؤالي الساسي نقطة مركا أنا سيان أهداف وحقيقة جنه قابك أن كسوس عنيوه وحبس كمان بالدلين 10 كستو نموذج كسو قادنين نموذج كاس محو نغا ساعداي كتاب كان هدو ادا ايمان دونا معلنو هذا شرح دون هذا انا كو شرحين هذا النموذج كان قادنين اسلا وحددي درسيga labaad aan nidaam نموذج ka qaadan نموذج maxaa way sambal maxaan qaadanayna nidaam الحكم في الدولة الأموية hanaanka maamul ee dawladda Umawiyiinta waxaan rabnaa in laga helo inta laga helo waxdadii waa ka soo helnay أسئلة وكسوهل بعد نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا 10 كمركة أشرح المعلم أنه أرضي وحال قربها سنبل كان قادرين يتعرف على نظام الحكم في خلافة الدولة الأموية نظام كيسكو معمول جرين أمويين على قربها حكم كود أرضي إنه فهمه هدف كاس حقيقي على قربها هي انتهى وإن 10 كلقاها 10 كأوي نسكي سواك المركة حكم الأمويون الدولة الإسلامية 90 عاما 19 سنة أي حكومة هايين مسلمين وأمويين في الفترة التي ما بين أفرتن إيكو إلى بقول صدر إلى بهجرية 19 سنة تعاقب في الحكم وحاسكو بدل حكمك أما ثلاثة 14 خليفة أفر يتبن خليفة أو مدة اسكو بدل شيء ومن البيت الأموي أمويين قبيل كاسله وكان معاوية بن أبو سفيان مع معاوية الخليفة الأموي الأول وخليفة جهري ومؤسس الدولة الأموية دولتنا نيك أساسية وتقالين سيدنا علي مركي دقالمين حكم كوهيستي مركي سيدنا علي أو دنتين حكم كأسال لوريجي دواساس كأسي مركا هاي غاب كان مركا تاس مرهور دقوي وكان خلفاء بني أمية خليفين تاس أفر يتبنك يقيمون حكم خلافتهم حكم كودا وحكم سليسناي على مبدأ توريث الخلافة بينهم دحلتوي بقورك اسلا بقورك دحلتوي لفتر كيس حتى النظام سليم مية حتى هذه الدافلة مايا
يعني مرة الاسكو قبصدا مثلا هذا واحد كجر السعودي أو كله وحلوها يستمع محمد بن سلمان ولا الكيسة كويستو هو يديس كويستو خلاف وحلس كويستو حق ما لها لليه أسي نفس الكيس حتى عدالة الوسعود وحبي أنا لا أسيجي أمتقنا مركا كل جود وحيكون ميدان استحل مركا 10 كي هدفتي سوى نوو جرتا هدفك حقيقي له إسلا نسكي ونوو جرا وواكن وحان شيغني خلفadaas 14 mid shuura ku yimid male kulligood waa la isdhaxlisiinay haddana ardayga markuu isqiimeeyo waxaan dhan loo sharaxo asaa dhahayo ani waa fahmay macallinow atacaraf ala nidaam alxukm fi khilaafati dowla almahiya aniga hadda qeexayo qaabka isku maamuli jireen markaasuu casharka kuu akhrina iyo wixii uu ka fahmay kuu sheega waa u saxay hadduu saxan yahay haddii wax ka qaloocan yihiin waa u toosine laakiin asaa isqiimeynay iyo inti kaleba أهدافتنا واكب أنه قرنتها يتعرف على نظام الحكم هدف كاس أنت بس عنه معناه هذا مركب معها أهدافتنا أردن كان كربنا معها كم والربا كم والربا كم والربا كم والربا كم والربا لكن قابك لو حقيقين لها أن ربنا إن صوبا نقول أنت سليوا مو هي وحقوني لو دورتي معها أما كل يسأل الربا لا معها كل والربا هدف كاس إلا حقيقي لكن نظامك لو حقيقينايو 10 من وجرة نسك من وجرة أهدافتي الواحد من وجرة أسئلة من وجرة هذا قارن وعلى الربا يقارن وإنه كجرة مركز تساس عمل أسئلة دي كوجرة وكان وعرف نظام الحكم في الدولة الأموية أسناد إنه متقارنا ما يخبر أساسا 10 كسومر وحو سومري أهدافتي جودة لقى فيري هدف كاسم كجرة 10 كي لقى فيري أهدافتي أهداف كلي 10 هكون دينا ناس شيغايو هدف كاس حقيقينا ما كو هيسامش ناس كهدلايو سيده كانو كلا ها واكو هيا ardayga markuu wuxuu ku leeyahay anigu waa fahmay macallino anaaba sheegay ugu dambeyntii su'aalihii oo aan niri mutaqaanaa macallimiinay marka waa maadsantihiin barakallahu fiikum 10 badan waa isu sheegnay khayr idin rajaynayna wa ila liqaa'in aakhir wa salaamu alaykum wa rahmatullahi مالك